xisbiyada mucaaradka ee dalka jarmalkuna waxay Somaliland u soo direen fariimo la xidhiidha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Gudoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid ee dalkani jarmalka ayaa maanta kulan isku yimaadeen waxay wareysi gaar ah siiyeen telefishinka caalamiga ee MMTV waxayna markii ugu horeysay ka hadleen doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee bishan aynu ku jirno dabayaaqadeeda 31 May ka qabsoomeysa dalkan Jamhuuriyadda Somaliland waxaana shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqeen inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida Somaliland allana uga bariyay in si amniya ugu qabsoonto waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay oo ku dheeraaday ahmiyadda ay doorashooyinkan u leeyihiin qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaha xisbiga Ucid ee dalkani jarmalka Maxamed Deeq Ciise Maxamed Case ayaa wuxuu yiri doorashadii golaha deegaanka ee baarlamaanka aan ku codeynay waxaan doonayaa inaan horta idin ogeysiiyo doorashada aynu galeynaa waa qayb kamid ah ictiraafkii Somaliland waayo dimuqraadiyaddu waxay kamid tahay in doorasho xor oo xalaal la qabto ayay kamid tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annagoo aan dalkii joogin inay doorasho dhacdo beesha caalamka dhaayada ku wada haysaa waxaanu jeclaan lahayn in ammaanka ilaalisan hada shacabka tiin ciidanka qaranka la shaqeeysan sidii xorka hayda u soo doortay qof kasta xildhibaankiisa in ugu codeysaan oo aad tustaan adduunyada inay meeshu tahay Somaliland meel labadana oo aad u qurux badan oo nabadgelyadu taam tahay dareenka loo wadaagina waa ka Somaliland meel kasta ay joogaan shacabka reer Somaliland guul iyo farxad baan u rajaynaynaa iyo maalinteeda oo ay ka sii fiicnaato waxaan aad iyo aad shacabka reer Somaliland u leeyahay aad baa u sugaysan doorashadan oo kale in ay idin dhacdo ka codsanaya qof kasta inuu doorto qofkii dalka iyo dadka u fiican oo macnaheedu wax u qabanaya hambalyeynaya labada xisbi gudoomiye iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo juhdi badan iyo dhaqaale badan ku bixiyay inay doorashada isa saaran qabsanto caalamkan ay joognay ku adagtay in laba doorasho mar la wada qabto laakiin Somaliland iyada u baahan maanta waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay oo soo afmeeray hadalka gudoomiyaha xisbiga Wadani ee dalkani jarmalka Cabdisalaam Sheekh Maxamed ayaa shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqay inay codkooda siiyaan musharaxiinta uga sharaxan xisbiga Wadani salaamaya dhamaan bulshada reer Somaliland dhamaanteed meel kasta ay joogto gudaha dibadba bulshada reer Somaliland muddo ayay sugaysay doorashooyinkan labada gole oo intaas soo jeer dib u dhacay beesha caalamka iyo dhammaan ummadda Somaliland u dhalatay dhamaanteed waxay sugayaan in doorashadaas ay nabad u dhacdo in ay doorashada nabad ku qabsadaan xisbiyadu waxay galiyeen tacab khaasatan xisbiyada mucaaradka waxaanu galinay tacab iyo dadaal badan in doorashadaas qabsato beesha caalamka iyo ummaddu dhammaan way sugaysaa waxaan u hambalyeeynaa musharaxiinta iyo beelaha sida wanaagsan u soo xulay musharaxiintooda waxaanu leenahay dalka iyo dadka cidii wax u qaban lahayd ee daafacaysay bari doorta waxaan aad ugu taakiidinayaa caasimadda Hargeysa oo xaalado badan ka jiraan oo dawladaha hoose aad loo dhaliilayay in aad doorataan cid golayd matala oo nadaafadiina iyo amnigiina iyo caafimaadkiina suga oo aan doox dambe ka qaadin gabadhida oo aan doonayaa inaan codkayga si weyn u gaarsiiyo bulshada Somaliland inay doorashada nabad ku galaan barqad jaamac batuun iyo mooge labadan in aad inooga ilaalisaan caasimadda oo sharaxan waxaan doonaynaa xisbiga Wadani iyo xisbiyada mucaaradka ay idin keeneen waa kii dawladda wax ka bedeli lahaa waa kii idin sixilaa dalka iyo dadka waa kii la xisaabta ka soo celin lahaa inaad si wanaagsan oo nabad leh u dareertaan oo ay ilaalisaan amniga caafimaadkiina iyo fayadhowrkiina xaaladda corona lagu jiro waaya la mudakar MMTV jarmalka daawadayaasheedaan u jecelnahay guud ahaanba inta waxaan ku soo afmeerinaa war wixaan idinka haynay dalka gudihiisa iyo daafaha caalamkaba oo dabcan aad ka dheehanayseen shaashada telefishinka caalamiga ee MM xaruntiisa dhexe ee magaalada Hargeysa warkana waxa idin la socodsiinayay anigoo Maxamed Andara intii ku kulmi doono warkan warka xiga dhamaantiinba waxaan idinkaga tageynaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh